Faadimo waa gabadh ku dheggan shareecada Ilaahay, dhaqan wanaagsanna leh. Xilligii ay daraasadda waxbarashada ku jirtay ayay gabadh ay saaxiib tahay waxay u sheegtay inay soo xidhato dharka Islaamka, siiba xijaabka iyo dharka kale ee lagu yaqaano gabdhaha Muslimaadka ah. Waxayna gabadhani ku lahayd gacanta weyn in gabadhani ay isku beddesho dhanka wanaagsan. Waxayba noqotay gabadhii la waaninayay mid salaada ku oogta xilliyadeeda, mid qur-aankana xifdisan, axaadiistana taqaana, adkaartana aad u xafidsan. Mar walbana waxay reerkooda uga dhex sheekayn jirtay jacaylka ay u qabto gabadha ay saaxiibada yihiin ee Faadimo. Arrintaasi oo ka dhigtay wiilkii iyada ka yaraa ee walaalkeed oo ahaa farsamo yaqaan injineer ah inuu ku riyoodo inuu mar uun Faadimo arko oo uu u gudbisto shukaansi. Waxa uu bilaabay wiilkii inuu meelaha is istaago, jaamacaddana ka soo ag wareego si uu Faadimo u arko. Gabadhaasi oo aragtidiisii qaadatay, iyadana dareensiisay inay ka dareento dhankiisa kalgacal, iyadoo markaa ay gabadhii saaxiibadeed u sheegtay inuu walaalkeed jecel yahay, uuna aad niyadda ugu hayo inuu u soo shukaansi doonto. Maalin iyadoo maktabadda kuwa wax laga akhristo ka mid ah fadhida oo wax akhrisanaysa ayuu ku soo dhowaaday, waxna uu u sheegay inuu aad u jecel yahay uuna doonayo inuu iyada guursado. Waxayna ugu jawaabtay markaaba, arrin siraan kuu sheegayaa, laakiin ammaano ka dhigo, cidna ha u sheegin. Markii uu ballan qaaday inuu qarsanayo, waxa ay ku tidhi, anigu waxaan qabaa sonkor, bal arrintaa ka soo fakar. Sida aad uga soo jawaabtana berri baan ku sugayaa. Ogowna xadiiskii nebiga ee ahaa, dadka naxariista Ilaahay ayaa u naxariista. Naxariista kuwa dhulka ku nool, ha idiin naxariisto kan kor joogaaye. Warkii ayaa yarkii si kulul ugu dhacay. Berridiina waaba la kulmayba, waxaana uu sheegay inaanu hadda suurtagal ka ahayn inuu guursado, doonayana qof nadiif ah oo aan xanuun qabin, una dhalaysa ubad nadiif ah oo caafimaad qaba. Adiguna sida aan arko ayaa tahayoo ma haysatid wax caafimaad ah. Faadimo waa ay murugootay, waxayna aad ula yaabtay sida uu isu beddelay ninkan yari. Arrinteediina waa ay sii qarribantay markii ay ogaatay in yarkii uu sirtii faafiyey dadkoo dhan oo sheegay, ammaanadiina uu xifdin waayey oo khiyaaneeyey. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. sidoo kale waxaa aad u xanaaqday gabadhii la dhalatay wiilka ee u shukaaminaysay Faadimo, taasi oo xasuusisay xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa, 4 qofkii iska hela ama ay ku dhammaystirantaa waa munaafiq badhaxla. Qofka mid ka mid a calaamadaha 4 ay ku jirtaahina waxa uu leeyahay astaan munaafiq ilaa uu ka tago calaamadda. Haddii la ammaanaysto waa uu khiyaamaynayaa, haddii uu warramayana been ayuu sheegaa, haddii uu ballan galana waa oofin waayaayo waa uu ka baxaa, haddii uu doodo oo uu dadka la doodana ama arrin dooda la isugu yimaadana waa uu xumaadaayo murankuu badiyaa. Xilligaaba labadii waalid ee Faadimo dhalay waxay ogaadeen dhibka haysata gabadha, waxayna go'aansadeen inay xajka u kaxeeyaan oo ay la soo cumraysato. Intii ay xaramka joogtay ayay waxay aragtay haweeney kulayl u dhimanaysa. Waa ay caawisay, waa ayna badbaadisay. Wiil ay haweeneydu dhashay ayaa u mahad celiyey, waxaana uu ahaa nin dhallinyaro ah oo dhaqanka wanaagsan ilaa heer ku sufaysan.
markii gadaal loo soo laabtay cimrada laga yimina waa uu soo doontay, weliba wuu ku sii adkaystay markuu ogaaday inay sonkor qabto. Waa uu guursadayba oo wiil ayayba u dhashay qurux badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay heshay gabadhii ay saaxiibada ahaan jireen ee la dhalatay wiilkii xumeeyey iyada. Waxayna sheekadii ka ogaatay in walaalkeed uu guursaday haweeney ilmo yar u dhashay gabadha oo aan caafimaad qabin, isagiina uu hadda xanuunsanayo. Haweeneydiina ay iskaga tagtay isaga iyo ilmihiisii yaraaba markii ay ka quusatay noloshiisu inay ka soo rayso. Faatimo markaa gabadhu waxay u soo sheegtay inay soo cafido. Waxay ku tidhi, waan ku baryayaa iska soo saamax, una soo ducee in Ilaahay caafiyo, waayo anigu waxaan ogahay intaad Ilaahay u dhowdahay iyo inta aad adigu toosan tahay. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.